بسم الله الرحمن الرحيم كسعته دمان ملكيلياشا شركتها موتوباجاجكا og guddiga iskaashatada gaadiidka mootobajaajka og gudoomiyaasha degmooyinka deegaanada gobolka Banaadir og agaasimaha waaxda gaadiidka iyo ganaaxyada dawladda hoose ee Xamar agaasimaha waaxda xiriirka degmooyinka gobolka Banaadir taliska ciidanka ilaalinta deegaanka Xamar taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir taliyaha qaybta nabadgelyada wadooyinka gobolka Banaadir agaasimayaasha guud ee gobolka Banaadir iyo dawladda hoose ee Xamar afayeenka maamulka gobolka Banaadir xogayaha guud ee maamulka gobolka Banaadir gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka Banaadir wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda xukuumadda federaalka Soomaaliya wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya og xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya og xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ujeedo wargelin gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho markuu arkay dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya markuu arkay sharciga maamulka gobolada iyo degmooyinka dalka ee number 6 soona baxay 12kii bishii labaad ee sanadkii 1980 markuu arkay qaraarka ka soo baxay golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya 30 Maars sanadka 2023 kaasoo lagu go'aamiyay nidaaminta gaadiidka mootobajaajka arintaas oo fulinteeda loo xil saaray maamulka gobolka Banaadir markuu arkay warqadda sumadeedu tahay daaha ma ga dama 01 ama eber hal 16 eber 8 ee soo baxday 17ka bisha afraad sanadka 2023 ujeedadeedu tahay hakinta soo dejinta mootobajaaj mootogaari iyo mootada laba lugaaleeda ah markuu arkay warbixinta guddiga xal u helida mootobajaajka magaalada Muqdisho laga bilaabo 24ka bisha afraad sanadka 2023 dhammaan milkiilayaasha iyo shirkadaha gaadiidka mootobajaajka waxaa la idinku wargelinayaa in aad iska diiwaan gelisaan goobaha maamulka gobolka Banaadir iyo dawladda hoose ee Xamar u asteeyeen diiwaan gelinta si loogu sameeyo tirakoob iyo midabeen ama kalareen ama rinjiyeen intaba sidaad u taqaanaan dhammaan gaadiidka mootobajaajka ee ka shaqeeya magaalada Muqdisho isla markaana loogu sameeyo A iyo B ama A iyo B goobaha diiwaan gelinta lagu sameynayo waa sida tan xarunta Laasareti ee degmada Cabdilcasiis xarunta waaxda gaadiidka ee dawladda hoose ee Xamar ee degmada Warta Nabadda xarunta Piazza Libero ee degmada Xamarweyne xarunta saldhigga galbeed ee degmada Dharkeenley afartan xarumood oo aanu kor ku soo sheegnay waxa ay tagi karaan dhammaan laga bilaabo 24ka bisha afraad sanadka 2023 oo aanu ku guda jirno goobahaasi si mootobajaajyada loogu sameeyo rinjiyeen iyo asteemeenta loo asteeyay inay kala qaataan A iyo B fiiro gaar ah cid allaale cidii u hogaansami weyso awaamiirta sare ku xusan waxa laga qaadayaa tallaabo waafaqsan sharciga sidaas daraadeed mas'uuliyiinta warqadan ogeysiinta ku leh waxa iyaguna lagu wargelinayaa in sidaas ay ula socdaan isla markaana ku gacansiiyaan guddiga u xil saaran diiwaan gelinta iyo midabeynta mootooyinka bajaajka magaalada Muqdisho